شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وقافلذيني هدى للناس. حلقذني وحلقذي شنية تبنات عوان كيدنا وحون نقنيا إن شاء الله خطورة اتباع الهوى. هوذا أول الراعو خطرت أي ليذهي. وحنكو إيجينا قول ربنا جل في علاه: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. والوحد إلتي مادان كتاب إلهي حقيس كتاب إيغا كينا، كتاب كاسو كتوصن كان هنون بدن لبدن كتاب وتوراة إيا قرآنك. وان راعي مركابو النبي عليه الصلاة والسلام إن كنتم صادقين. هداد إي كنتان كتاب إلهي حقيس كيمد أو كتوصن كان سحسن كان هنون بدن قرآنك إيا توراة النبي موسى لغسو دتشيي. وان راعي أيو النبي عليه الصلاة والسلام منا كينيان مشركين تي النبي بينيسي إيا قالدي النبي ديدي إيا غير كودبا ما كيني كران أرنتاس يدا ودا أفرن معها maxaa yeelay labadaa kitaabba waxay kulansadeen hanuun iyo cilmi iyo bayaan iyo raxmatun lilkhalqi bay ahaayeen. waana meesha ugu dambaysa xagga insaafka. qofka daaciga ah, rasuulka ilaahay xaggiisa ka socda, dadka inuu ugu yeedho xaqa iyo hanuunka iyo rushdiga iyo salaaxa, waa waxa ugu qiimo badan ee dadka loogu yeedho. intaa kitaabka intaasi kutubta kulansatay ee towraad iyo furqaan ah, haddaad ii keentaan kutub ka toosan waan raaci buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. nimankaasi mushrikiinta ah, aayaddii ka horraysay ilaahay wuxuu inoogu sheegay: falamaa jaa'ahum alxaqu min cindina. xaqii markuu xagga yaga oga yimid, qaaluu lowlaa uutiya midla maa uutiya muusaa. waxay yidhaahdeen qur'aanka xaqnimadiisa kama fakarayaan, xujadiisana ma dhuuxayaan, laakiin markiiba waxay la soo boodeen kitaabkii nebiyullaahi muuse lagu soo dejiyey oo kale annagana maana lagu soo dejiyo. ilaahay baa u jawaabo wuxuu yidhi: awalam yakfuruu bimaa uutiya muusaa min qablu. miyayna ku gaaloobin kitaabkii nebi muuse lagu soo dejiyey oo qaaruu aysan dhihin sixraani tadaaharaa wa qaaluu innaa bikullin kaafiruun. waa laba saaxir, nebiyullaahi muuse iyo haaruun, waanan ku gaalownay miyaysan odhanin. markaa kadib ayuu ilaahay noo sheegayaa nebigiisu inuu yidhi: qul fa'tuu bikitaabin min cindi illaahi huwa ahdaa minhumaa attabicuhu in kuntum saadiqiin. walaalayaal, haddii ay maalintu daliil u baahato, xaggee daliil looga keeni? dadka qaar waxaa jira xujadu aysan deeqaynin, daliilkana uusan ku fillayn baa jira, wax walbana ku gacan saydhaya, arrinkiisuna uu yahay khaalif tucraf. marka qofka noocaasa waa qof hawadiisa raacay. sidaa daraaddeed buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala: fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum. haddaysan ku yeelin oo aysan ajiibin qur-aanka aad oola timid, rumaynta aad rumaysan tahay haddaysan kugu raacin, faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum, hawadooda ayay raaceene ogow. xalqadeennuna waxay ku saabsan tahay hawada oo la raaco, hanuunka oo laga tago khatarta ay leedahay. waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin. yaa ka dhumid badan oo ka baadiyeysan
qofka hawadiisa raacay bigayri hudan min allah hanuunkii ilaahay isagoo ku gacan saydhaya hawadiisa raacay ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin inay dulmi galeen dulmiguna uu yahay dulumaatun yowma alqiyaama ayaad meeshaa ka garanaysaa maxaa yeelay ilaahaygii ku khalqay baa ku yidhi faimaa yaatiyannakum minii hudaa faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun marka inaad hanuunkii ilaahay ku gacan saydho ood beeniso rusushiisiina aadan raacin oo aad hawadaada raacdo sow dulmi ma aha sow baadinimo ma aha ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ayuha alaxibatu fillaah ilaahay wuxuuna leeyahay waxaad ogaataa dadkani haddaysan hanuunka raacin mushrikiintu haddii aysan ku raacin adiga xujana aysan la imaanin waxaad ogaataa diidmada adiga ay ku diidan yihiin ma aha inay xaq kala doonayaan ee hawadooda ayay raaceen meel mugdi ay ku socdaan waana mujarad itibaacu lhawaa hawadooda ay raaceen weeye axibatii fillaah baadida laguu sheegayo waa in hanuunkana laga jeesto waddadii toosnaydna ee ilaahay ku gaadhsiinaysayna laga leexdo daartii karaamada ee qiimaha badnaydna laga leexdo dulmi iyo mugdi iyo meel baadi ahna la aado hawada oo la raaco iyo dulmi baana waxaa keenaysaa dulmiguna waa dulumaatun yowma alqiyaama saa daraaddeed buu ilaahay wuxuu yidhi ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin allah subxaanahu wa tacaala daalimiinta ma hanuuniyo qofka dulmigu uu tilmaanta u noqday cinaadkana uu dhaqanka u noqday hanuunka markuu u yimaado wuu diidayaa hawadiisa ayuuna raacayaa qaacidadan marka maanta iga qor man lam yastajib lilwaxyi qofka aan waxyiga ilaahay ajiibin waxyigana uusan hogaaminin ambiyaduna aysan hagin fa innahu daahibun ila alhalaag halaag buu ku socdaa ibnulqayim calayhi raxmatu arxam araaximiin wuxuu leeyahay annutqu waa nowcaan hadalku waa labo nutqun cani ilwaxyi hadal waxyi rabbi ku hadlaya iyo wa nutqun cani ilhawaa qof hawo ku hadlaya weeye allah subxaanahu wa tacaala marka waddo saddexaad ma uusan sheegin imaa itibaacu lwaxyi ergeygii ilaahi subxaanahu wa tacaala oo rasuulkiisa oo la raaco yaa imaa itibaacu lhawaa ama hawada inaad raacdo hawada qofka markuu raacana waxaa weeye meesha ay geynayso waad garanaysaan ibnu mascuud radia allaahu canhu wa ardaah oo taabiciyiintii la hadlaya ayaa wuxuu yidhi antum fii zamaanin yaquudu alxaqu alhawaa waxaad joogtaan xilli uu xaqu hawada hogaamiyo oo qofka waxa uu doonayo xaqu uu hogaaminayo oo xaqu uu qaa'id yahay wasayaأtii zamaanun yaquudu alhawa alxaqa xilli waxaa iman doona hawadu ay xaqa hogaamin doonto oo waa maxay maxaqii baan xaq ahayn maya wuu yahay laakiin hawadiisuu yuu ku socdaa haddana aayad qur'aanuhu deliishanayaa hawadiisuu ku socdaa haddana sheekh baa hor ordaya hawadiisuu ku socdaa dadkuu kala geynayaa baadi buu dadka ugu yeedhayaa rushdi dadka uguma yeedhayo haddana waxaa weeye waa kaa cumaamad weyn yahay hawadu marka ay wax hogaamiso waa marka la baaba'ay weeye ayuha alaxibatu fillaah ilaahay in badan buu qur-aankiisa inoogu sheegay inay dulmi tahay inay meel ka dhac tahay in aayadaha ilaahay agtaada lagu sheego in lagugu dul akhriyo dabadeedna aad ka jeedsato qaala tacaalaa waman adlamu miman dukira biaayaati rabbih huma acrada canhaa waman adlamu aayad kale oo ku macno dhow waman adlamu miman dukira biaayaati rabbih faacrada canhaa yaa ka dulmi badan mid ilaahay aayaadkiisa lagu ag sheegay oo ka dabadeedna isaga jeestay haddii aayadaha ilaahay laga jeestana maxaa meesha imanaya hawadaada inaad raacdo hawo haddii la raacana maxaa imanaysa
وحوي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هوديس قفك الراعنا إله بي مركز دنبا النقونيسا. أيها الأحبة في الله أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين arrinkaasi way fahmeen si fiican bayna waxyiga u qaateen sunnada nabigana u dabaqeen salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. abubakar radiyallahu canhu waxaa laga sheegaa inuu khudbadii ugu horreysay uu yidhi ayuha annaas ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum. raaca waxyiga rasuulkiina raaca waxa weeye bidcana hala imaanina diintu way dhammaystirantay weeye alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. diintu way dhammaystirantay nicmadii rabbina dushiina ayay ku taam noqotay ee haydinku fillaato iimaansada weeye. axibatii fillah qur-aanku inagu inala hadlayaa waa hudan linnaasi ee hanuun aan ka dhiganno hawadeenna yaynan ma aragtay qawaaniin ka dhiganin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naga doonayaa qur'aanka in aynu qaa'id ka dhiganno, qur'aanka inaynu hogaamiye ka dhiganno, qur'aanka inaynu daliil ka dhiganno, qur'aanku inaynu kitaabkii alle fariin allo inaga inagu socota wax walbana ay ku cad yihiin. maa faratnaa fi lkitaabi min shay ayuu alla subxaanahu wa tacaala yidhi. ayuha alaxibatu fillah inta aynu oga kulmi doonno xalqada 16aad waa walaalkiin cabdullaahi xambali xaaji cabdisuldaan oo idin leh war ramadaankii haaf baa tegay, haafkii kale ayaa inoo harsan. allahana gaadhsiiyo waxaynu horay u qabannay allaha naga aqbalo, waxaynu ka gaabinayna allaha noo dhaafo, inta noo dhimanna ka faa'iidaysigeeda allahana solonsiiyo, habeenka laylatulqadarka allahana waafajiyo. أحبتي في الله أترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.